بارودو سفر هرت maanta waxaa noo imaaday marti culus waxay ka socday bangiga adduunka oo la yaqaan World Bank waxaa kaloo la socday waxaa ka imaaday safarkan oo noo soo darmaday Garissa County Government dadka socdo iyo Mheshimiwa Shiil iyo deegaamada Dadaab iyo Faafi dadka socdaan iyo waxaa kaloo nala joogan hay'adaha samafalka oo shaqeeyaan qaxootiga oo shaqeeyaan runtii arrintan horta maanta fursad fiican bay ahayd maanta waxaa laga hadlayay cawashada deegaanka khaasatan dadka qaxootiga uu saameeyay sida hadda Faafi Dadaab iyo Wajeer South runtii waad ogtahay waagi hore qaxootiga la keenayna lama tashanin hadda markii la yiri waa reer waxna weydiiyay ma laha aad baan u cawanay marka nasiib wanaag madaxweynaha mudane Uhuru Kenyatta arrintaas uu dhageystay wuxuu la kulmay madaxweynaha World Bank wuxuuna ka codsaday in ay tagaan Dadaab oo ay la soo kulmaan dadka deegaanka oo ka hadlaan wixii wax qabad ah khaasatan mashruuc lacageed oo World Bank ay bixinayso dawladda Kenya ay tahay damin ka tahay in laga soo hadlo waxay la kulmeen mas'uuliyiinta Garissa County Government ama dawladda county-ga mudane Shiil aniga mudanayaal laga soo doortay wararka iyo dawladda sare mitaalkooda oo joogan Dadaab iyo dadka degan deegaankan qaxootiga u saameeyay horta marka hore waxaan rabaa inaan ku sheego baaruudow World Bank waxa weeye waa bangiga adduunka wuxuuna u dhaxeeyaa dawladaha caalamka oo dalbo dawladda Kenya waxay ka mid tahay 180 dawladood oo macnaha World Bank kuwa iskala ay yihiin World Bank markastaba dawladaha marka sida hadda kuwa soo korheen waanagoo kale waxay siisaa lacag amaah oo aan lahayn macnaha dulsaar saas weyn marka lacagta ayadana waxay ku siiyaan 3 sano waxay siiyaan lacag qiyaasan waxayna ku siiyaan dulsaarna ma laha 8 sano oo waxa la siinay waxay dhahan grace period lacagtan waxa lagu bixinay 36 sano 8 sano kadib marka horta waa lacag amaah oo aad macnaha u nugul oo macnaha dhib weyn aan keenin marka dawladda Kenya waxa u soo socdaa fursad ah in lacagtaas oo kale ay hesho marka madaxweynaha markuu la kulmo madaxweynaha World Bank wuxuu tusay lacagta la siin doono Kenya sanadka soo socda waxaan rabaa deegaamada qaxootiga u saameeyay in mashruucyo loo subiyo lacagtana dawladda Kenya damiinka ah waa lacag amaah ah waa in dawladda nafteeda marka arinta aan ka hadalnay anaga waxyaalaha noo daan waxa meeshan jidka u dhaxeeya Garissa Dadaab ilaa Liwaa mudnaanta koobaad waxa koow waa jidkaas mudnaanta labaad haddana waa jidkaas mudnaanta saddexaad waa jidka marka kadib waxaan codsanay in la taageero xagga caafimaadka xagga tacliinta xagga dhirta iyo deegaanka iyo maxay ahayd xagga dib u dhiska dhibaatooyin naga soo gaadhay qaxootiga waxyaalaha aan u sheenay waftigan ka socda waxa weeye jidkaas oo loo dhiso iskuulada oo loo dhiso oo loo hagaajiyo kuwa hoose iyo kuwa dhaxabo waxaan ka codsanay in loo hagaajiyo technical institution oo ardayda ay ku bartaan farsamo kala ah waxaan kaloo ka codsanay in naloo geliyo dhaqaale maalgelin ah oo wax soo saar leh khaasatan xagga beeraha iyo xanaanada xoolaha waxaan ku dhahnay markuu roob da'o biyo fara badan ayaa meeshan maran waxaan codsanay in la dhiso biyo xireen ilaa 5 ilaa 10 xabo oo lagta lagu dhiso ilaa 10 kun oo ruux oo beero abuurtaan la abuuro xoolaha naftooda in lagu beero cawska loogu talagalay in xoolaha ay ku cayiraan sida waxay dhahaan Napier grass ama Sudanese grass marka dadka anagana hadda nolosha reer guuraa way soo dhamaatay in macnaha ninka soo beer iyo xogaaga xoolo ah iyo ari iyo lo uu sameesto oo wax soo saar isku filaashay xagga cuntada ay helaan mudane 26 sano qaxootiga halkan ay joogeen codsiyaad jeedinayseen rajiinta dhabaad ka qabtaan codsiga inuu mar dhalakan runtii baalido maanta fursadan waxaan u anahay fursad fiican tahay sidaan ku sheegay lacagtan dawladda Kenya waa la siin ogolaashada lacagtaas iyo mashruucana waxay ku xiran tahay madaxweynaheena iyo dawladda marka maanta waxaan ku sheegay madaxweynaheena asaga naftiisa waftigan la kulmay oo yiri u kac meeshaas marka waan hubnaa lacag inay siin hadda waxay noo sheegeen lacagta hadda la hubo oo gacanta lagu hayo inay tahay 100 milyan oo dollar waa 10 bilyan oo shilin oo Kenya laakiin anaga waxaan rabnaa jidkan u dhaxeeya Garissa ilaa Dadaab ilaa Liwaa oo lagu qiyaasay in uu u baahan 200 milyan oo dollar in mashruuca lagu soo daro taa ayada waxaan ku heli karnaa in dawladda Kenya ay garab noo noqoto oo lacagta ayada ay ka noqoto guarantee si jidka asaga lagu dhiso ugu dambeyntii
waxyaabaha dhaawac ee dhirta soo gaaray isdhihi karto in qaramada midoobe ee dowladda Kenya muhiimadda siiso oo la dhaawac tiraa maxaa ka mid ah horta waxyaalaha u muhiimsan in la dhaawac tiro u baahan waxa weeye xagga environment ama xagga dhirta iyo deegaanka runtii dhulkan intaysan qaxooti imaanin wuxuu lahaa dhir fara badan wuxuu lahaa xawayaan duurjoog ah oo kuwa hadda ka mid ah geriga gorayada cawsha waxyaalahaas baa joogan hadda maanta xawayaankaas duurjoogta ma jiraan aad bay u yaraadeen dhirtina aad baa loo cunay sababtoo waxaa la dhigtay in la shito in qoryo laga dhigo iyo in guryo laga samaysto dhulkii marka waxaa ku dhacay nabaad guur aad u baxsan marka waxaan codsanaynaa arrinta ayada ah dowladda hay'addan World Bank inay ayadana wax ka qabato si dhirtii deegaanka lagu soo sidoo u ahaa waxaan codsanay xadkan in loo furo si musar xaq oo wanaagsan uu nooga dhaxdhaco dadka ummadda Soomaaliyeed iyo anaga oo reer Kenya